بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس ددكي كمد هذا من دول يقول أرنهيا آمنا وحن رميني بالله إلهي رويني وباليوم maalinkiina waa rumayna maalinkaasoo al-aakhiri ee dambeeyey wamaa hum ayaguna bimu'miniina kuma rumeeyey ma ahan ilaahay yoomka aakhirka ee dambeeya. casharkeennan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu sheegayaa maanta suuratulbaqara waxay ka hadlaysay awalan kitaabka ilaahay inuu xaq yahay. qeybta labaad ee ka hadlaysa suuratulbaqara iyadoo axkaam fara badan ka hadlaysa haddana waxaa ka mid ahaa inqisaamu nnaas ilaa halaathati, dadka in la qeybiyo ilaa 3 qeybood loo qeybiyo. casharkeennii hore waxaan kusoo qaadanaa 2 qeybood oo dadkii mu'miniintii oo mutaqiintii khulaska ahaa iyo kufaar oo khulasoo dad gaalaha gaalnimadoodu saafi ay tahay. halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga cadaynayaa dadkii ahaa munaafiqiinta. dadka munaafiqiinta waa dad xagga lisaanka iyo markay hadlahayaan iyo qaabka dad muslimiin u eg, laakiinse xagga ictiqaadka dad gaalaha ka ah. dadkaas sida casharkeena hore aan kusoo qaadanay way ka dhib badan yihiin dadka ah gaalada, sababtoo ay tahay gaaladu gaalnimadiisa uu kaala foyo wuu la muuqdaa oo cid ku kadsoomaysa ama ku khaldamaysa ma jiro, laakiin qofkan qof muslim ah loo maleeyo bulsho badan baa ku sirmaysa. haddana gaaladaas inay munaafiqiintu dhib badan yihiin waxaa u daliila gaalada 2 aayadood ilaahay ugu sheekeeyey subxaanahu wa tacaala, laakiinse kuwan munaafiqiinta ilaa 13 aayadood ilaahay uga sheekeynaya sifaadkooda. nimankan munaafiqiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamuu ka bixiyo sifaada iska leeyihin qofka munaafiqa lagu yaqaano. sidii dadkii mu'miniintaba ilaahay ugu tilmaamo sifaadka ugu tilmaamay, kuwaana sifaad ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. sifaadku ilaahay ku tilmaamay waxaa ka mid a alkhadaaca, way dhakraan dadka mu'miniinta niman dhakra weeye oo dhagarowyaal ah. waxaa ka mid a sifaadka ilaahay uu ku tilmaamay alkadib, waa niman beelowyaalaho wax aysa sameynayeen waxay leeyihin waa sameynaa. wuxuu ilaahay ku tilmaamay inay yihiin dad quluubta ka jiran oo maradu nifaaq qaba oo qalbiga ka xanuunsanoo meel laga xanuunsada qalbiga u liita aan daawo lahayn. ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin niman mufsidiin oo ayagoo carro haleeya, dadka waxaa leeyaaba inay iyaga yihiin. haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamay safaaha, nuqsaanun caqli ilaahay ku tilmaamayo dad aan caqli badnayn ilaahay ku tilmaamo fudayd ah oon caqli lahayn. dad wuxuu ku tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala tijaaradooda ku khasaaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu odhanhayaa waminanaysi dadkiiuu ka mid ahda muduul mankaasoo yaquulu odhanaya aamanaa billahi ilaahay rumayno. carabkaasay ka leeyihiin mu'miniinta laga haleelsiinaya. carabkaas waxay leeyihiin waxaan nahay dad ilaahay rumeeyey. maalinka waa bilyawmi alaakhirina weyleyn, maalinka aakhirana waan rumaynay leeyihin. ilaahay wuxuu leeyay wamaa hum bimu'miniina, ayaga kuwa wax rumeeyey ma ahan kuwaas. afka unbay ka leeyihiin maahane ma aysan qalbiga iyo ictiqaadka kama aaminsana ilaahay iyo maalinka qiyaame. marka waxaa la yihahdaa qofku sidiisaba markuu munaafiq noqonayo, munaafiqnimada waxaa keena waa daciifu shaksiya. qofka shaksiyadiisu ay daciifka tahay qofkaasaa munaafiq noqda. amaa laakiinse qofka hadduu shajaaco uu leeyahay si toos uu fikirku qaba u caddeeya, laakiinse qofka aqwaashiisa iyo afcaashiisa iskhilaafayso waa qof oo daciiftinimo qaba oo wuxuu qabaa daciifu shaksiya buu qabaa. mideeda kale nimankan waxay saas u yeelahayaan xoolaha iyo in laga qaniimaystay ka baqayaan wax laga dhac marka sabcan muuminiinta ka mid hayliyi tilmaanu marka ilaahay ka bixi dadkan calaamad lagu yaqaan sifaatul munaafiqiin ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala. yukhadicuuna allah ilaahay dhakrayaan waladiina kuwiina way dhakrayaan aamanuu alla iyo rasuul rumeeyey. wamaa yakhdacuuna mana dhakrayaan ilaa anfusahum, nafiyaalkooda maana wax kale ma dhakrayaan. wamaa yashcuruuna ma oga annahum yakhdacuuna anfusahum, nafiyaalkooda inay dhakrayaanna ma oga. ilaahay subxaanahu wa tacaala khadaacu ku tilmaamay inay dad yihiin dhagarowyaala. ilaahay ay dhakrayaan. haddama ilaahay ay dhakri karaan subxaanahu wa tacaala, cid dhakri kale miya jidha ilaahay. culammadu mufasiriinta waxay ku fasirahayaan maadaama dadkii mu'miniinta ilaahay uu raadi ka yahay subxaanahu wa tacaala, dadka mu'miniinta ay dhakrahayaan. marka tacdiim mu'miniinta la weynanaya maadaama mu'miniinta ay khayaanayaan ay dhibahayaan, ilaahay muxuu yidhi ilaahay ay dhakrahayaan. idan waa mu'miniinta ilaahay ka dhakrahayaan. marka waa tafqiin oo shaniga mu'miniinta la weynanayo.
والذين كوينا ويدكرهيان آمنوا الله يا رسول يا مالك قيامة ذكر رمينا ويدكرهيان وما يخدعون ما دكرهيان إلا أنفسهم نفيالكو ما wax kala ma dhagrayaan nataa'ijta ka imaata ama waxyaabaha miraha ka yimaada dhagartooda nafsadooda u laamaysa iyaga cadaab ku mutaysanaya ma ahna muuminiinta waxa u dhibayaan bal muuminiinta darajada ugu kordhaya dhibkaas ay munaafiqiintu dhibahayaan wama yashcuruuna ilaahi man oga oo ma dareemayaan inay nafsadooda dhagrayaan nimankan waxa isku malaynayaan munaafiqiinta markay muuminiinta la goynayaan oo tiftifahayaan oo ay wax ay ku sameeyaan waxyaabaha xumaanta inay muuminiinta arintaas wax dhibaysay mooyaan laakiinse waxa wax isku dhibaya waa ayaga idan ayaga aakhirada iskaga ciyaareen munaafiqiintii naarna ku bedeshay jannadii marka waa hagardaamada ay wadeen unba ayagu la galeen ku dhaceen godkii qodahayeen ku dhaceen sifaat kale ilaahay ku tilmaamay wuxuu oranayaa fi qulubihim qalbiyalkoodu ahaada maradun jiru qalbiyalkana way ka jiran yihiin jiradaas marka qalbiyalka culimada mufassiriintu jirada laba loo kala qaadaa waa mid badaniya oo dhaqaatiirta la tacaashay iyo dadka adibada ah oo qofka oogada haduu ka jirada waa laga daweyn karaa laakiin si jirada oo qalbiga ilaahay daweyn kara marka nimankan ximintii qofka ugu muhiimsanayd ximintaas ka jiran yihiin marka qalbigaas waxay ka qabaan maradkan oo maradun nifaaq hadda niman oo hurdo ay ka jira ay ka seexan waayaan ma ahan waa meesha nabigu hadda uu lahayo ala inna fil jasadi mudghah qofka oogadiisa waxa ku sugan cada hilib ah ku sugan idaa salaha al jasadu kullu marka nimankan ayagu meeshaas ka jiran yihiin hanuunkii waxa ay ku qaadan lahaayeen beena laayiin fazaadahumullahu ilaahay u ziyaadiyay maradan jirra kala ilaahay u siyaadiyay jumladaas fazaadahumullahu ina ka dhigno khabariye ina ka dhigno ilaahay ayaa jirra u siyaadiyo maadaama dad xaq raadinaya aysan ahayn haddana waa la sii dhumi فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم وك إلهي لايو مركز طوع اللحرام بإلهي سي اللحيني قفكوا وحي أصوا قبتا إلهي أفضل سبحانه وتعالى طريقة وناسان قفك أضوق آذنا لأن هديان لهم سبلنا وإلهي إلهي طريقة سوكتو سينية هدو أصوا مد ودارتحنا إلهي سبحانه وتعالى كاس وكسي وضهي مركا قلوبتو الجرة آهاتي جردين إلهي أكري أسيسية دي ما داوة ضد حق ربا إسانهاي أما الجملة لقد جملة دعائيها فزادهم الله الله أكري maradan in la yiraahdo markaas ilaahay jirha u sii kordhiyay qulubta ku iska jirayeen waa sifo labaad ilaahay munaafiqiinta ku tilmaamay walaahu marka waxa u sugnaaday dadkii munaafiqiinta ah cadaabuna u sugnaaday cadaabkaas oo aliimun wa xanuujinaya cadaab oo xanuujinaya maalinka qiyaamada cadaabkaas u sugnaadu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu ugu sugnaaday bima abuna ugu sugnaaday kaanu ay ahaadeen yakdibuuna inay beeniyaan waxayna beeninayaan yakdibuna ay ka been sheegan bimaaba uu soo laba qira ku jiro yukadibuna in la yiraahdo yakdibuna in la yiraahdo qiradan hadii hadda la aqriyo bima kaanu yakdibun waxay ku been sheegayaan maxay lahayn wa minana asma yaqulu salaam maran amanna billahi ilaahay rumayn iyo aqradan rumayn warkaas ay ku been sheegan cadaabku u sugnaado ilaahay subhanahu wa ta'ala ama bima bisama ma uu soo maaga soo kaano ay ahaadeen yukadibuna inay beeniyaan oo kitaabka ilaahay beeninayaan قرآن كي بينين هيا وإذا قيل لهم مركا هدي لو يرادو لا تفسدوها فساديننا في الأرض أرضا يدولك إليها فساديننا قالوا وحي إليهن إنما إن كلامنا نحن أنقو مصلحون كوا وحاجين هيانا حضرنا نمان كاني نمان وحلو شيء كرمان ونمان ملح عدق قمنا هذا نقورت وجر السيد إلهي ونوشي سبحانه وتعالى qofka haduu waxa leeyahay bani aadamku waa khaldama waan la toosiya laakiin ayaga niman qaladkooda la sixi kara ma aha nimankan markii la yiraahdo fasaadka daaya fasaad hada waxa cibaadadii ardadan in daarul laga dhigo aan kufri taas ay fasaad hadii la yiraahdo ardada fasaadin oo kufri iyo munaafiqnimo ku fasaadin maxay leeyihiin inma nahnu muslihun way cid wax fasaadaysan anagu dadka wax hagaajinayaan hay u sheeg cid wax ka qaldayn anaga waxba naga ma khaldana saasay leeyihiin idan marka qofka hadii wax ka qaldan qaladkiisina uu saqirinayna wixii lama sixi karo oo waxyaabaha ilaahay ku tilmaamay kamida oo adoo luku xanuunaysa tiraahdo waxay xanuunaysa madaxa ay wareeraya madaxa laga daaweynay jireysna oo ku sii jiranaysa marka ayagu way qarinayeen meesha ka hadlaysnaayeen fasaadkii qarinay waxay leeyahay waxba wanaajinayna ilaahay marka wuxuu leeyahay ala baraarugo innahum ayagu al mufsiduna kuwa wax fasaadiye way kaligood
ayaga unbaa fasaadka wadu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ضميركاس أو هم كجرا ضمير منفصل إلى حصر وحلي يرده فائدة الفساد محصور في المنافقين أولين فساد كوا عدة وكوكو مية وأيجا أيجا إسكبريان المصلحين إسكو شيء جاي إلهي وحورنا يا ألا برارو إنهم أيجو هم أيجو المفسدون هم أيجا بابا المفسدون كوا فسادية ولكن أيجو لا يشعرون مؤجا إني وح فسادين أيام بن من أوج ما أهن صفكله وإذا قيل لهم nimanka munaafiqiinta hadii loo yiraahdo dadkaas munaafiqiinta hadii loo yiraahdo aaminu rumeeye Allah iyo rasuul iyo maalinka qiyaamo rumeeye hadii loo yiraahdo kama sidina u rumeeya aamananaas dadka ay u rumeeyaan muuminiinta aha sida dadka muuminiinta aha Ilaahay iyo rasuulkiisa ay u rumeeyaan qaabkaas oo kale Ilaahay u rumeeya hadii la yiraahdo maxay ku jawaabayaan markii la yiraahdo Ilaahay rumeeye qaaluu waxay leeyihiin أنؤمن موحى رميننا كما سيدي آمن السفاء ضدك ضبالله سيح رمين معنا ورميننا أنا وحلي ما ضد ضبالله أنا ضدك مؤمنين تاوي ضبال كوش يجايا وأيق وحي هير مقالمة ويقانين به وحي لينا أيق منافقين تأمسيين بالشدة نوع على الله سبحانه كدابين أيق وحينا قال أطغى وإذن للجرادة منافقين وإذن للجرادة لكن سبحان ضدك مؤمنين تاوي كلي أيق وحي كل جين طريق الله ديرو إلهي النبي كليه كل جين ضد كان كلنا بعلادينه مركب واحد سوحي ليه واهير بادينه وحفي عن معهن قابك في على كيسم حاول يقفكوا إنه معناه قف بابل جاي بالشدة لأن أفرم بيرا أيوم مركب واحد ليه ضد كاس ضبالله هل كم يلكو حيران وكلام أنا نقونينا قالوا واحد إنه منهم مرمينا كما سيدا أمن السفهاء ضد كأيو رميان أو ضبالله هكذا مركب أيضا المفسرين توحي ليه إنما كان ما دام منافقين هايين منافقين تنا يقرسن شيرين هدي يرادان oo dadkii muuminiinta sufaay ku sheegaan soo fashilmi ma hayaan oo nimanka la leeyn maayo lama fahmay inay munaafiqiin yihiin waxa la leeyahay markay leeyihiin anuuminu kama amana sufaha dad gaar ah warkan ku qarsan jireen oo qolo gaar ah waxay oran jireen muuminiintu waa dad dabaala sababtoo ay way isdhiibeen idan marka la wajiilo qofka laga ma rabo maxal rabaa qofku inuu hal dhinac isku dhiibo sida munaafiqiintu sheegtay warku ma ahan إلهي وحلي ألا بلاري وإنهم أيهم أيهم أسفهاء وأيها أمبا ضبالا ولكن لا من لا يعلمون مؤجا إن الضبالين مؤجا أيها وعد الضبالا ضبال وحا قفك آخريديسي كوبد شيء الدنيا معنا لهين أو إسلا أرجع سمك يجيلاسي يلا غني ويسن يبرتاسي يلا كحيسنة مسلم ماذا كلي عرب كوقت أواق قلبي جنا يسكجري مركب منافق لماذا أورنا يصدق كدور وجهه الأولى صلى الله بقي وضع الله كلا قضايا ليرة مدوا مد اعتقادي قفك وأمسيه من نوع مد عملي يعني هذا ضدك مسلمين تبادنا واحد مداني كوسا بونيس مدة أو عملية قفك أصلا واحد وقصدين وهذا إسقاط سمينا وعلى اللي إن دبلوماسية وحياة اللي شيء يا مجاملة وحلي هذا كان وجه قرحي كان وجه قرحي وحافظ كان كلا قلا كان قلا ميت كسنة وحلا نكسر أنا وعد وأظن وحبونا جنين والربا قف كستو كمية أنا حوجا كستو كيشيد شرع الإسلام كويس ضدك إن لو وناجيو يعني حتى بنت إن الشيء كر أضل الله وقلا إسكول حوناجينا قلا أنت وتكتيد له غيره بلو كسر سلامة ينو على هذا وكش الله يسناينا وحلا ينبل واجعلنا لكن إن أدو تكتيد نفس هذا كنا أدو وجه كرتين أتري هبل اسمنا غانا كنا أدو وجه كرتين هبل اسمنا غانا أديك صاحبك يعني وأرين مركا عملي أو ضدك بدنا يكون أغمان وأرين مركا للربا إن لقد دكتونا هذيك لما كان جليسة وإله عذاب كأليمك ودياري وإذا لقوا مركا هذي لكل من الذين كوا هذي لكل من آمنوا الله يا رسول رمي قالوا وحليين آمنا أنه إله رسول رمين مركا ضدك مؤمنين تأركان واستوصى يعني وحليين أنه إله رسول رمين وضد الله رسول قرار هيان وإذا أخلوا مركا هذي وقال النقدان إلى شياطين كوا مدحضها أو رؤوسها هذي وتجان مرافقين تيوين قالوا وحي إنما إن كلامها هني إنا أنه قالوا وحي لي إنا أنه معكم إنك إن لجرنا مرافقين تنواوين لجرنا ومعلمين تيدا إيجان لجرنا إنما إن كلامنا نحن أنه مستهزئون كوا إسك جيس هي أنا مؤمنين هذا مركان لاين إنا مركان لاين آمنا مركان لاين وإسك كفتوين مان أنا ضد منافقين إنك إن كتر سنة رجنا أنا أسلين هيلي ولا بدي وجه يكون رقم هي الله إلهي يستهزئ بهم أيو كجيس هي eraygan ay yastahziu ilaahay jeejees lama aanan karo laakiinse waxa laga wada ilaahay amal marinayo waxaas ay ku dhaqmayaan shay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka jaaziin doona ka amal marin doona marka lafdigaas yastahziu sababta loo adeegsaday mushaakala leeyahay xagga balaaqada marka la joogo mushaakala leeyahay lafdi hore la soo sheega lafdi kale loo ekaysiinaya waa makaru waa makaran lahday waxbay dhagrin ilaahay aa dhagray
labada lafdiya la isku ekaysiinaya ama sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay in allaha la yamallu hatta tamallu hadda marka dadku daalaan inuu ilaahayna daalayo ma ahan laakiin sa lafdiga maxay loo yimid mushaakala wixii loo jiray marka hadda waxa laga wadaa ilaahay acmaal marinaya nimankaas ويمدهم إلهي وحو زيادينها أعمارهم وعمريالكم إلهي وكردينها يعمهون حاليا كوجها ورارسا في طغيانهم أما يعمهون وحي كوجها وراريا في طغيانهم قوقو داس أيو إسكي جرا ومرة مؤمنين تنتو تقال مؤمنين مرة مرافقين تلا رقم هيا سيداس أيو كجرا عمري الله بينا سي عذابك حقا ليزدادوا إثما واي سي دنب أسي زيادة عمري لو كردينها إلهي لي مركا كواس محيها لين أولئك كواسي الذين كوي اشتروا ضلالة baadida soo iibsadeen bil hudaa hanuunku iska ku soo iibsadeen hanuunkii inta suuqa geeyeen bay baadi soo qaateen sababta tahay labadii wadaba way cadda oo iska muuqata fama rabixad marka ma ziyaadin tijaaratuhum tijaaradu wama kaanu ayaguna muhtadiina kuwa hanuunsan ma aha kuwa hanuunaya ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay nimanka tijaarada way khasaar waxa tusaale laga dhigay maadaama baadilkiina la cadeeyay xaqiina la cadeeyay inay yiraan anagu baadilkaas aan rabnaa xaq marna dalaalkii marka soo gateen hanuunkiina suuqa iska geeyay nimankaas marka wuxuu leeyahay waa niman oo tijaarada oo qasaad u leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaalu ilaahay ka bixiyay subxaanahu wa tacaala nimankan mathaluhum kuwaas tusaalahooda ka mathali ladii ninkii waa la mid istawqada hursaday naaran dab hursaday nimankaas waxay lamid niman dab shitay falamaa adaat marka naartii markay ifisay ما حوله لديك وحي قارركيس أو مستوقد كي قفك دبك ورصدي ذهب الله إلهي وتكسيي بنورهم تدكاس وتكسيي نور كودي وتركهم إلهي وكغتغي في ظلمات المجديال وكغتغي لا يبصرون حالا يسوح بأركين وكتغي إلهي سبحانه وتعالى تصالوا كبحي تصالها أن من كان منافقين توحي لديهم قف دب شتي markuu qofku dabka shitay iftiino arka dabkii markay carrada u ifisay oo rabo inuu qoryo iyo wax ku doonto wax ku araaruso dabkii laga seexi qofkaas marka maxay soo wajahay qofka waxa soo wajahay sababta ta fursad oo arkay oo dab iftiin fursadina ka faa'iideysan waxa laga yaabaa qofkaas haduu mugdi ku jiri lahaa dabna aan loo shidin lahayn intibaac waxa leeyahay ta ku dhacna dabeecadiisu la qabsatay inuu mugdi iftiinba inuu jiro inuu qalbigiisa ku soo dhaceen laakiin se waxba la tusay waan laga cishid nimankan marka ayagu waxay lamid yihiin inta adduunka joogan xoolahooda laga dhicin maayo muuminiintaas lagu tirinaya marka aakhire la tagana fiinuusta waa ka dantay cadaaba u bilaanay marka qabriga galay sidaas uu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala summun marka nimankan waa niman oo aan waxba maqlayn bukmun waa kuwa oo afla waxma oo xaq kuma hadli karaan kuma dhawaaqi karaan munaafiqnimada u diidan umyun waa kuwa indhala oo indhaha xaq ku arkaan oo ictibaar ku arkaan mala foo marka ayagu la yarjicuuna laawan ma hayaan sababtoo tahay qof aan dhiga lahayn indhana aan lahayn afna aan qabin wuxuu hadda ku laabtay ma yaqaan yaa wuxuu sheegay yaa wax tusay xageebu aadaya dadka sidaas uu Ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa ta'ala tusaale labaad Ilaahay ka bixiyay oo amasa ka sayimin oo kala waay roob ka asxaabi sayimin roob oo shumid badan asxaabteedo kala waay roob kaasoo min as-samaa'i samada xageedana ka soo shumaaya roobkaasoo fiihi sayibka dhicisa dhulumaatu mugdiyaal ay ahaadeen roob oo samada ka yimid oo mugdiyaal badan wa racduna ay ahaadeen unkad ama gubac racdiga waxay ku sheegaan mufassiriintu sawtu malakin malag waa sawtkiis waay oo dadkii hore saalixiinta waxay oran jireenba Allahumma in kana hada sawtu rahmatik fa kayfa sawtu adabik rahmadaadi sawtkeeda waxaan haduu yahayba oo roobkii ilaa waa raxmadaada sawdkeeda haduu sidaa nooga nixinaya cadaabkaaga sawdkiisa Ilaahay uu seebiyahay oran jiray dadkii wanaagsan waa barqun oo ahaaday birqiyaal ama waxay ka dhigan yihiin dad oo roob haya roobkaasina uu mugdiyaal badan wato badana roob markuu da'ay mugdiyaashaas u bataa haddana roobku unkad buu ridaya birqana uu tuuraya yajcaluuna marka waxay yeelanayaan asaabiicahum farayaalkooda fi aadaayim dhigaha yeelaya dhigaha marka dadku faraha gashanayaan waxay ka naxayaan roobkaas iyo gugacaas iyo waxaas ka cabsanayaan maxay u gashanayaan من الصواعق لأجل الصواعق هنقريالكاس iyo waxyaabaha dhacaya dartooda u gashanaya حذر الموت لأجل حذر الموت geeri ka cabsida darteed iyo geeri ka cabsanahay والله إلهي محيط الله كوبي way cilmi ku koobay bil kaafirina gaalada ku koob Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nimankan waxay tusaaloodiyeen dad uu roob ku day roobkaas uu mugdi badan birqa iyo unkad badan roobkaas uu leeyahay oo dadkaas faraha ay dhaga gashadeen marka waxa roobkii lagu shabahayaa waa quraankiya lagu shabahaa
unkadkiina waxaas looga shabahaya waa aayadii waciidka oo nimankan munaafiqiinta ka hadlayay kuwaas oo lagu shabahaya hilaaca kuwa lagu shabahaya waa aayadii shubahaadkooda cadeynaya haba markay shubaha ku soo arooriyeen muslimiinta ba ayaada cadeynay markii leeyahay dhagaha faraha gashan ilaahay muxuu leeyahay yajcaluna asaabi'ahum fi aadanihim dhagaha dhan lama geliyo faraha dhan dhagaha lama geliyo marka qofku wax gashanay xibnaha hore la geliyo laakiin ayaga waa lagu mubaalaqooday fariid dhamaay dhagii ku aruureen inta cabsidii ka baatay marka ayagu maxay ka baqayaan aayaad oo fashilay inuu yimaado ka baqayaan sida dadka roobkaas ay u baqayaan ayagu waxay leeyahay aboo quraan haduu nabiga maxamed uu ku soo degay armo idin fashilay hebel uu sheega inay munaafiqiin yihiin saas kale marka waa cabsanayaan uu leeyahay laakiin ilaahay uu ogyahay subhanahu wa ta'ala dadkaas yakaadu marka wuxuu sigayaa albarqu wuxuu sigayaa hilaac yakhdafu inuu dafayo abasaarahum dhayaalkooda inuu dafayo dadkaas hilaac markuu dhacay in indhaha uu ka tuuraya loo malaynaya marka ayagana marka waa sidaas oo kale aayaadkii ama baraahiintii cadcadayd oo shubahadooda baabi'inaysa baa saas oo kale ayagana indhaha uga tuuraysa kullama indhana adaa lahum qoomkaas uu iifa dariiqan uu ifiyo markastoo barqigii uu dadkaas dariiqan uu ifiyo mashow fiihi dariiqaasay ku soconahaya wa idaa adlama calayhim hadduu dushooda uu ku mugdiyoobana qaamuu iska istaagaya ilaahay dadkaas sifaadkooda waxaa ka mid uu leeyahay dadkan oo ku tusaalaha dadkaas ilaac markuu uu u qabto carrada u iftiima way soconayaan intii ay aragga ku arkeen oo qodxaa iyo dhagaxda lahayn ay ku soconayaan haddii laakiinse ilaaci waayaan maxay samaynayaan way is istaagayaan ilaa wax ka sheegay ma yaqaaniin munaafiqiintuna quraanku markuu ka sheekeeyay qisas dad hore dadkii la dhageysanayeen laakiinse markii la yiraahdo ayaga afaarahooda marka arrimahooda laga hadlo sida dadkaas oo mugdiga ku dhaco kale istaagaya mugdiyaalkan waxa lagu shabahay waa afkaarta ayagu ay wataan ilaahay markuu leeyahay walaw sha Allah ilaahay haduu doono la dhahaba ilaahay wuxuu tagsiin lahaa haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doono wuxuu tagsiin lahaa bisamcihim maqalyaalkooda ilaahay uu tagsiin lahaa waa maqalyaalka xaqiiqada laga wada indha caadiga wuxuu ka tuuri lahaa dhagaha caadiga dad dhagoolayaal ka dhigi lahaa waa basiirina uu tuuri lahaa indhaha caadigana uu ka tuuri lahaa in Allah ilaahay qadirun alla wada way ala kulli shay kasta ilaahay uu awoodo subhanahu wa ta'ala marka ilaahay haduu doono indhaha uu ka tuuri lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaana aayadan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkiisa guud u lahadlay saddexda qolob maadaama laga soo sheegay sifaadkoodii muuminiinta iyo dadka mutaqiinta iyo munaafiqiinta iyo gaalada kulli ilaahay halkan aayadan kula hadlay yaa ayuha naasu dadkan u ibudu caabuda rabbakum rabbigana caabuda ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadaw rabbigana caabuda marka yaa ayuha naasu suurada haday ku jira suurada waxa lagu yaqaanaa oo makkiga ah laakiin suuradan al-baqara waa suurad madaniya hadana way ku jiraan lafdigan oo yaa ayuha naasu ilaahay wuxuu leeyahay dadkan u ibudu rabbakum rabbigana caabuda rabbi marka in la caabudo asbaab dadka ku kalifayso ilaahay sheegay iyo nicmo dadka ku nicmaystay alladhi rabbigaaso khalaqakum idinka inaan abuuray walladina kuwana abuuray min qablikum idinka idin ka horeeyay la'allakum waxad muuntii tattaquuna inaad cabsatiin hadda ilaahay caabudin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay ilaahay caabuda maxaanad u caabudaysan waa Allah idinka idin abuuray iyo dadka idin ka horeeyay marka maadaama uu ilaahay wujuudkayaga uu meesha ba keenay caabuda sidaas ku mutaystay natiijada laga helayana waxa kamid ah la'allakum tattaqun likay tattaqun saadu cabsteen markii qof ilaahay caabudo natiijada ka dhalanaysa waa inuu qof taqiya noqdo alladhi wa ama huwa ilaahay alladhi alihi wa ja'ala lakum idinka idin yeela ardada firaashin gogol idin kaga yeelay nicam kale ilaahay wuxuu noo sheegay ku marnaysta khalqiga wa samaa samadina binaan dhis idin kaga yeelo samadina kor idin ka mariya ardada idin goglay wa anzala ilaahay dajiye min as-samaa xagga samada ka dajiye ma biyo ka soo dajiye Allah samada xaggeedina biyaha ka soo dajiyay oo min as-samaa waxa maanta laga wada min as-saxaaba laga wada daruurka biyaha la keena marka samadii ba ya daruurka laga wadaayo shayga mujaawirka ah samada degaya dhanka samada maadaama daruurku uu naga jiro sidaas marka la siiyay samada xaggeeda ka keenay biyi waa wixii mujaawirada la oran jiray oo fa akhraja markaas uu soo saaray ilaahay subhanahu wa ta'ala bihi bisabil madar ilaahay wuxuu ku soo saaray min athamarati ba'da athamarati soo saaray miraha qayb kamida rizqan li ajli rizqin uu soo saaray arzaaq dartiida lakum idinku irzaaqay Allah roobka diiyay waliba roobkaasna ku soo saaray من الثمرات عراب بدن با ku banaan minta inaan iraano waa tabciidiye waan ciraabka ugu wanaagsan aan iraano min الثمرات miraha qayb kamid oo soo saar ilaahay subhanahu wa ta'ala rizqan li ajli rizqin uu soo saar lakum idinku in arzaaqay idinku in arzaaqay miraha dhan hadda dadku arzaaq u wada ah kuwa lagu dhintaa jire miraha qayb kamid ah dadka ilaahay u soo saar waxa kale oo la sheegaa mintaas in la yiraahdo in lagu ciraabo min oo saa'ida quraanka markii la joogo sila la yiraahdo oo markaas alihi in soo saaray فأخرج مركز soo saaray bihi bisabil madar in kugu soo saaray min athamarati mirihi idin soo saaray rizqan marka waxa la leeyahay markaas waa qeyru qiyaas grammarka naxwada markii la joogo cilmi naxwaha markii la joogo minta hadii la ziyaadinayo nafi shibigiisa inuu ka hormaro nakarana inay jadal rabo labadiina hadda lama hayo marka
وزيد في نفيه وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر شروطنا لما هي مرك الله اسمرك عابد بلي إلهي سبحانه وتعالى فلا تجعلوا مرك هيلنا لله إلهي أندادا كوالله مد إلهي ويلنا وها اعتقادنا وح إلهي لمد إني جيران صنمياتك الإيجوجية ولا حال أنتم إنكم تعلمون أذوقتين إلهي هذا ضدك وحكوا عن باريي ضدك وح أوليه إذنكم إلهي إنه إلهي واحد يا وح إلهي قبتنا عن مخلوقاتكم قمن كرين هذا إلهي وشريك لنا هذا هنا الصنم وإله لمد لنا صنم تاع محمد قمن كران أيوب وإن كنتم مرك هدياتين في رأي من شك هذا كسوانتين مما كي حق سينا أكشك سنتين نزلنا أندجنا على عبدنا كوا واحد أن شك ما قبلنا قراك إن إلهي لهنا أم لينين إلهي وحلا مرك أنا واحد سود جنا حق هذا كشك سنتين على عبدنا كسود جنا فأتوا الله إماذا بصورة هل الصورة الله إماذا من مثل هنا كلام هذا قرآن كانوا كلام هذا ضمير كلك اللي عليه قرآن كانوا كلام الله إماذا قال هذا محاولات بدنا يسمى مسيلمة الكذاب كمية هذا أيان ومذا بالشيء ضافور مو أهم بقى قرآن الشيء هي أوله مسيلمة الكذاب مركي وح قرآن ويجان شيء كوا أسيء اللي جوا أتباع سال الله يابن حنا ضدك يانا الله يابن وحنا مردم بهالشيء نجا مسيله مركي إلهي عليه قرآن كانوا كلام الله إماذا إذا قرآن أخبار الأولين والآخرين واحد يعدون كل بكشة كيناية أخبار تاسر مركو حكشة كيناية أما سجع القرآن كلام الله إماذا إلهي سبحانه وتعالى هذا الله إيمان كرام أما الضمير كله عليه فأتوا بصورة الله إماذا من مثله كلام هذا من مثله أولا إماذا نبي الله محمد عبدي وكلا على عبدنا الضمير كله عليه عبدي كانوا كلام أولا إماذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كأسوا آخرنا يا وح كستكشة كينه هذا النبي أمي بها أمام بيوتا مرك لين النبي أمي بها يا نبي وحنا مقر يجري شيء الله قرآن ما آخرين شيرين إذا نضو شيء قاس قرآن وحلقة أما قرآن آخرين يرادان كتبه هذا هراء حضاء وكأخرس وحياة وكشيء شيء مركا وح التي مدن أضان قرآن وح آخرنا هي هذانا أن وحقور أقول وإحنا آخرين أقول ما الله إيمان كرام مركوي وادعوا مركز وير شهداءكم كوين كغمر قاتيجا من دون الله إلهي كسوكو أيها وحي أورنشرين إلهيالك يا نغمر قاتينا إلهيالنا وحنا إني بينين مركب على القرآن أنت اللي تمدين شهادتنا الله إماذا إلهيالك الله إماذا أما الشهادة الجوا ضلوا قضاء عربي قا فصاحة ذا يقانا ومرقاتي الله إماذا وحنا إني القرآن إن كغمر قاتيك عيرا الله بدن قرآن وحنا اسمه دير بل هذا يجوا إسرائيل عبيس مجدي إن كنتم هدأتين صادقين كورن شيء جاي هذا ورن شيء يسان الشكسنتين إذا كان القرآن لا إماذا القرآن لا إيمان كدين مرك لما إيمان كران إلهي هلكم كعدي فإن لم تفعلوا مرك الدين السمين كريم ولن تفعلوا ما بسمين يسين فاتقوا النار كعب صدا التي النار تاسو وقودها النار تهرنتيدو الناس ضدك وهذا والحجارة رجح دينا وهذا وعدة نار والد دياري للكافرين قال له دياري إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحي سبحانه وتعالى هدين السمينين ما بسمين كدينه هذا القرآن إلا إيمان كرامال مركز نفتينا ودمريو نارتا كعب صدا نارتنا waxa lagu huriyaa dad oo carunki dadka kale lagu cadaaba xijaarana waa lagu huriyaa xijaaratul kibriid in la yiraahdo oo waa dhagax waxa la yiraahdaa xijaaratul kibriid oo qarxaya markii hurcu gaaro waxaas lagu cadaaba ilaahay ka maan galnay subhanahu wa ta'ala ama xijaarada waxa laga wadaa dhagaxday caabudu jiraan sanamtay qoreen laftirkooda inta naarta lagu geeyo lagu shidaa iyo lagu gumay innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ilaahay wuxuu leeyahay waxa idinkii waxa caabudaysiinba waa xaaba lagu hurinayo jahannam maadaama marka ilaahay uu ka sheekay dadka munaafiqiinta amaalmarkooda iyo dadka ilaahay dariiqiisa ka leexday kuwa ilaahay rumeeyay dariiqooda ilaahay noo sheegay wa bashiru bishaara alladina kuwa aamanu alla iyo rasuul rumeeyay wa amilu shaqaya as-salihati amaasha wanaagsan anna allahum ayaga in usugnaatan ugu bishaaray jannatin jannooyin dadkaas jannooyin ilaahay ugu bishaaray ilaahay subhanahu wa ta'ala jannooyinkaas oo tajriya ay dureersanaysa min tahti ashjaariha wa qusuuriha jannada hoosteeda waxa dareersanay al-anhar wabiyala dureersanay jannada marka geedaha ku yaala beeraha ku yaala iyo dabaqyada dadku ay ka degan yihiin hoosteeda biyaha maray waa waxa qofka bani aadamka uu jecel yahay inuu guri qurxoon dego haddana biyaha shaqantooda uu maqlo hada waa wabi caana mid khamra mid biya waxaas hoosteeda maray kullama indano ruzuqu la arzaaqo minha jannada xageeda min thamaratin mira xageedna laga arzaaqo rizqan arzaaqitana la arzaaqo dadkaas قالوا وحيين هذا كان الذي كيوي رزقنا نلسيي من قبل هراي dadka ahlu jannada meeshaas markii la dijiyo cunno la siiyay cunnada wanti hore naloo siiyay min qabl waas marka laba macna ku jiro in la yiraahdo intaana jannada gelin koor mirihin la siin jiray weeyo hadeertaan adduunka mirihin la ku siin jiro kala waa ama maxaa laga wadaa in ay ka wadaan jannada intaana dabaqan imaan meel kale oo kamid ah ku soo cunno mirahan oo jannada gudaheena la min qabl marka qabla inay tahay intaan meelahan la dejin ka hor
iyo in laga wada min qabl adduunyada ku cuni jirnay ilayeen marka mirahan waa loo jawaab marka ilaahay wuxuu leeyahay waa uutuu marka waa loo leeyahay bihi bidacaami waa loo leeyahay mutashaabihan xaaliyo mid uska mirta adduunyada haba u ekatay laakiinse way ka macaantahay mushaabaha ka dhaxaysa maana miruhu mirihi xaq ma ahan walahum waxa u sugnaa dadka ahlu jannada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqii uu amray maray fiihaa jannada dhexdeeda aswaajuna ugu sugnaaday xaasasyaal oo gabdhihiina nimanay ku leeyihiin nimankiina gabdhahay ku leeyihiin aswaajaasoo mutaharatun waa gabdhaha xayd ku dhacayn kuwan adduunyada waxaaba laga yaabaa xayd iyo waxyaabo lamida in ay ku dhacaan oo markaas uu ninku isagoo xaajadiisii leh uu gudan waayo xaajadiisii waxyaabo maanic ay u diidaan laakiinse kuwan ilaahay muxuu leeyahay waa aswaajun mutahara waa gabdho hadda loo jeedo waxay cunayaan ay muuqdaan haddana nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam haddiiba ninku asagoo ahlu janna ah adduunka jooga naagtiisa ay ku qayliso xuur ciinta gabdhahaas inay la hadlayaan xuurun ciintaas ilaahay qur-aanka ku sheega ay leeyihin naa ka leexo dhib buu kuwa aqabaay wahum marka dadkii mu'miniinta ahaana khaaliduuna kuwa ku waaraya waaye fiiha jannada dhexdeeda haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala laba shay oo dadka bani aadamka aad ay u jecel yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan ku sheegay horta waa mara guryo dheerdheer iyo webi iyo biyo hoos marahaya iyo waxaasuu ilaahay ku sheego dadku ay jecel yihiin haddana dadku waxaas wayba arkaan inkastoo waxa jannada iyo waxa adduunku ay kala duwan yihiin wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan u sheegay inay leeyihiin ta'biid oo ilaahay muxuu leeyahay wahum fiiha khaaliduun waa ku waaraya adduunyada waxaa laga yaabaa hoteello waaweyn iyo ganacsi badan haddaa leedahay ama hantidaa baaba'aysa ama adiga baaba'aysa oo dhimanaysa xilli waxaa la gaaraya galaas caana aada ka cabi karin xilli waxaa la gaarayaa aad cuntada waxba aad ka cuni weydin hantidaadii oo wax naxariisa adduunka aad ku weydin intaa awooddu kaa dhammaato laakiinse dhallinyarana waa la iska ahanaya waxaana ma baaba'ayan marka maxaa meeshaas dadku way ku waarayaan khuluuda ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadkaas wanaagsan marka ilaahay naga mid dhigo kuwa xun dariiqoodana allaha naga duwo aquulu qawli hada wa astaghfiru allaha lii walakum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh